بسم الله الرحمن الرحيم. مدن رئيس الوزراء كحجين وزير كاشانديكا وزير كوحبرشدا كحجين كسفارة تركيا تلياشا سراكيشا تليها كلية ترك صوم لمان سراكيشا كلا دوان ليلي سراكيشا هي دمان أسكرتا ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhamaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan sharafta leh waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waa maalin weyn oo aan goobjoog u nahay saddex guulood oo waaweyn. saddexdaas guulood oo ah furitaanka sanad dugsiyeedka 2025-2026 qalin jabinta ururka 204 guutada 20aad ee commandos gorgor qaybta koowaad ee ciidanka dhulka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dhaalinta ururka 205aad ee guutada 20aad qaybta koowaad ciidanka gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo damaashaad inaan intaa la kulano dhammaan ardada kuwa qalin jabinaya kuwa cusub gabdho iyo wiilalba waxaad tihiin daljirayaasha qaranka, waxaad tihiin taliyayaasha berri iyo hogaamiyaasha mustaqbalka. meel kasta oo aad joogtaan waxaa la rabaa inaad dhowrtaan ballanka iyo cahdiga aad gasheen. waxaad tihiin dadka ilaalinaya sharafta ummadda Soomaaliyeed iyo qarannimadkeena. waxaad tihiin kuwii dalkan ka bixin lahaa baylahda uu yahay. dal aan lahayn daljirayaal ilaaliya waa adduunyo aan lahayn wax dad aan lahayn, waa adduunyo aan dad lahayn. waxaa la rabaa inaad dalkan dhaartaad u dhaarateen iyo difaacaad u gasheen intaba aad uga soo baxdaan sida ay tahay. waxaa la idinku tababaray dishibliin, geesinimo, wadajir. waxaa waajib gaara idinku ah dhiiggana aad u horeysaan difaaca dalkeenna, diinteenna iyo dadkeenna. qaran aan awood lahayn xilligan la jooga adduunka wax qiimo ah kuma leh. sidaas daraaddeed awoodda ay sugayaan shacabka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed waa idinka hadda ka qalin jabinaya waxbarashada iyo kuliyaddan iyo tababarka aad barateen dhammaan. awoodda koowaad ee ciidannimo ma aha tiro iyo tayo, laakiin waxaa weeye iyo hub waxaa weeye awoodda koowaad ee ciidannimadka kalsoonida, niyad dhab ah iyo in shaqada loo guto sidii loogu talagalay, daacadna laga noqdo, niyadana si dhab loogu qaato. rasuulku wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam mas-uuliyadda qofku markuu qaato qof walba kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati. qof walba wuxuu mas-uul ka yahay waxa la raaciyey iyo hawsha uu hayo. waxaa laydinka sugayaa oo laydinka rabaa maanta hawsha aad qaadateen iyo dhaarta aad marteen iyo mas-uuliyadda aad qaadateen qof walba inuu ka soo baxo. waxaan leeyahay ururka 205aad waxaad ku soo biirteen ciidanka xoogga dalka oo lagu yaqaano inuu si hagar la'aan ah u difaaco sharafta ummadda Soomaaliyeed iyo qarannimada dalkeenna qiimaha leh. dhaarta aad dhaarateen ma ahan erayo keliya, waa ballan alla subxaanahu wa tacaala hortiisa aad ku qaadeen inaad difaacaysaan dalka iyo dadka iyo diinta. difaacidda aad difaacaysaan dalka iyo dadka iyo diinta waa waajib idin dul saaran. ilaahayna wuxuu yidhi wa uufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula. waxaan idinkula dardaarmayaa inaad si joogta ah u ilaalisaan sharafta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sharafta qarankeenna, una adkaysataan caqabadaha halbeegna aad ka dhigataan ilaalinta midnimada, wadajirka iyo ilaalinta qayimka qarankeenna. anoo ku hadlaya magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka dhulka, waxaan u mahadcelinayaa dowladda iyo dadka aan walaalaha nahay ee reer Turki oo ah dad mar walba garab iyo gaashaan noo ah, kuna dadaalaya inayna gaarsiiyaan heer aan isku filnaano adduunkana aan wax la qabsano.
ugu dambayn Allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii adduunka iyo aakhiro liibaana dalkooda difaaca jiilalka naga dambeeyana uga taga dal dhisan oo awood leh oo adduunka la socda guulaysta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar